magaca jaamacadda waa Soomaaliya mid kamid ah ahdaafta ugu waaweyn ee loo asaasay ayaa ah in da'yarta Soomaaliyeed dalkoodu hooyo wax ku bartaan laga baxo jahliga loona hiiliyo aqoonta. University of Somalia oo loo soo gaabiyay UNISO maanta oo ah 28 August 2019 waa mid meel gaar ah ugu xardhan laguna xasuusan doono qalinjibiyaasha dufcaddii 13aad ee ka baxda jaamacadda oo isugu jirta heerka koowaad ee bachelor degree iyo heerka labaad ee masterka. munaasabad aad loo soo qabanqaabiyay laga fikiray ayna u howlgaleen khubaro jaamacadda ka tirsan ayaa miro dhalka guusha waxa ay natiijadu noqotay muuqaalkan quruxda badan ma ahayn wax la sii filan karay in hanaankan loo agaasimi doono xafladda qalinjibinta waxayna u muuqatay wax lala yaabo laakiin shaki kuma jiro in xaflad qaabkan loo diyaariyay looga daysan doono jaamacadda UNISO oo hormuud u ah inta badan bahda waxbarashada ee dalka. aragtida naqshadan quruxda badan oo horay xaflad noocan ah aan lagu qaban dalka waxa barbar socday dadaal la jaan qaadi kara teknolojiyadda casriga ah. diyaargarowga oo socday maalmo ayaa ugu dambeyn soo gaaray bilowga xafladda muddadii loo madalsanaa waxaana bilowday in ardaydu ay u soo xaroodaan hanaan diyaarsan oo kulliyad ah iyagoo wata calanka jamhuuriyadda Soomaaliya, calanka jaamacadda Soomaaliya iyo calanka kulliyadda ay ka qalinjibinayaan. naqshadda quruxda leh kuma koobneen labiska ardayda oo kulliyad kasta dhar gaar ah oo lagu yaqaan loo xiray laakiin kulliyad kasta waxay leedahay design u gaar ah waxaana aad u soo jiitay marti sharafta da'yarta la baray qiimaha calanka Soomaaliyeed waxaana laxjeclada wadaniyadeed laga dheehan karaa magaca jaamacadda oo ah Soomaaliya. bal isweydii haddii ay dal shisheeye wax ku baran lahaayeen waxaan rabaa inaan jaamacad ku geeyo hooyo maadaama aan iskuulka aan dhameeyey oo maantana aan rabo inaan jaamacad dhigto aniga haddaba waxaan kaa rabaa jaamacadan Soomaali ahayn inaadan i geynaynin haddii kaleetane jikada ayaan kuu galayaa ana jaamacadda Soomaaliya kaliya ayaan rabaa. hooyo jaamacadda Soomaaliya maxaa ku dooratay intaas jaamacada jiraan? hooyo waxaan ku doortay ayaan kuu sheegaya jaamacadda Soomaaliya aqoonteedu waa mid sareyso ayana leh aqoon-yahano professorayaal anka hataa adigoo jaamacadda dhiganaysid ayaa shaqo lagu gudbinaya. jawiga xafladda waxaa aad u bilay kooxda fanka hidaha iyo dhaqanka oo si gaar ah isaga xil saartay in codka heesaha waxbarashada wadaniyadda iyo munaasabadda quseeya la maqashiyo qalinjibiyaasha maanta ay farxadeedu tahay. جماعة صوماليا علمي كسياتو جماعة صوماليا علمي كسياتو jawigu waa degan yahay saacaduna waa socotaa waxaana bilaaban rabtay xafladda laakiin markan waxaa jawigu isu bedelay sacab iyo farxad waxaa soo galaya madaxda ugu sareysa jaamacadda Soomaaliya ee UNISO. hadda waxaa si rasmi ah u furmaysa xafladda waxaana sida ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah u sunna ah xafladaha ay ku furtaan qowlka eebe.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. wixii intaa ka dambeeyay waxaa bilaabatay hadal jeedinta marti sharafta ah iyo madaxda jaamacadda Soomaaliya. dhextaalka xafladda waxaa qayb ka ahaa fanaaniinta ugu caansan dalkeena uu ka mid yahay Cabdinuur Nahaye oo loo yaqaan Cabdi Dhaanto. goor habeen nohoy dadku wada hurdan hindaha laabluaya ku hasaawin jiray hana qaadkii horaad hirkaygu dartay anigoon heel la tuumin miyan hooyaan karaa gabagabadii waxaa xafladda soo afaaray maamulka sare ee jaamacadda Soomaaliya iyo madax ka socota wasaaradaha qaar ee dowladda federaalka Soomaaliya. qalinjabiyaasha halkan fadhiya waxaan ku ogaanay in 40% ama 890 arday ay shaqeeyaan oo ay isugu jiraan shaqaale iyo shaqo bixiyayaal. waa 40% ardayda maanta fadhiya already waa shaqeeyaan, inta kalena waxaan rajaynaynaa shaqo wanaagsan iyo inay shaqo abuurtaan. إلهي سبحانه وتعالى وهم قال هذا استخيرات بدن أو بدي بالربلة وحكليه ولو باهين هاي وعدد لاغون حرفة صبر يا إيمان فكرة يا دلال أو خيرات كسكفايدة استدلك وبنا فايدة يدك وقاعدة فكرة جناسي وفي عن هي كم مهم سن العقد اللي بالله بالها جناسي وها حسيد مدن إن مجالات مقدسة النقطين مجالات اللبات ay ugu kororsiimaha badan adduunka. waxaa ka horeeya oo kaliya magaalada Bataan oo ku taala dalka Filibiin. magaalada Muqdisho meel kasta oo aad martid waxaad ku arkaysaa dhismo goobo ganacsi iyo guryo cusub, waxayna tilmaamaysaa inay jirto rajo nabadeed iyo kobac dhaqaale. soo wada dadaalay muddo dheer waxbarasho ku soo jiray, maantana qalinjabintooda loo dabaaldegayo. waxaan rabaa kaliya inaan si gaar ah aan hambalyo u iraahdo ardayda ka qalin jabisay kulliyadda beeraha. ay wax badan baa idin sugaya. waxaan rajaynayaa inaydan magaalada aydan sii joogjoogin oo aad ka baxdaan oo meesha beeraha ay jiraan aad aadaan. waxaan aad ugu faraxsanahay jaamacadda Soomaaliya inay masalayaan arday fara badan oo ka badan 9,000 oo arday oo ka qalin jabiyay oo maanta bulshada Soomaaliyeed afarteeda keen ku kala fiirsan dhammaantoodna waxay u yihiin jaamacadda Soomaaliya ambassadoro ayagana meel walba ku masalaya. kuwa maanta qalin jabiyay waxay ku beeri doonaan kuwaas, waxay ka mid noqon doonaan hogaamiyaasha dalka, waxay ka mid noqon doonaan muxuu ahaa macallimiinta dalka, waxay ka mid noqon doonaan ganacsadayaasha dalka, waxay ka noqon doonaan maamulka iyo muxuu ahaa dawladnimada, waxay ka noqon doonaan madaxweyne, prime minister iyo wasiir bay ka noqon doonaan. rabaa inaan u ambaliyo jaamacadda Soomaaliya. run ahaantii saad la socotaan jaamacadda Soomaaliya waxay ku jirtaa jaamacadaha ugu ardayda badan uguna mataqaanaa magaca dheer. waa jaamacadaan isleenahay wada shaqaynta ay leeyihiin wasaaradda iyo guud ahaan bahda tacliinta sarena ay muuqato. anoo ku hadlaya magaca mar labaad waxaan u mahad celinayaa haddana hoggaanka jaamacadda haddii ahaan lahayn boodhka, macallimiinta, maamulka jaamacadda iyo qof walbo jaamacaddan xiriir la leh ama kaalmo ka geystay. waxaan sidaa si lamida u mahad celinayaa una hambaleynayaa waalidiintii wakhtiga badan idin soo geliyey oo aan aaminsanahay duruuf adag darteed dalkan ka jirta iyo guud ahaan waxbarashadeenna idin soo garab istaagay, heerkaanna idin soo gaarsiiyey. ayagana waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran khayr aljazaa. intaa kadib annaga haddaana wasaaradda waad la socotaan waxaan mar walba xoogga saarnaa inaan horumarino waxbarashada dalka. tan waxay fariin u tahay horumarka uu ku socdo iyo kobaca ay ku socoto waxbarashada dalkeenna. waxaan rabaa inaan la dardaarmo ardayda halkan joogta
maanta waxbaad barateen laakiin waxa aad barateen waa bilow waad qalin bedelateen waxa idin sugaaya hawlo badan ayaa idin sugaaya waxa idin sugaaya inaad mustaqbalkiina hore u sii wadaan inaad waxbarashada hore u sii wadataan inaad dalkiina wax ku soo kordhisaan waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo calankii aad wadeen oo calanka dawladda Soomaaliya oo runtii la magaca jaamacadan waxaan isleeyahay waxa way waa in aad si gooni ah u fiirisaan inaad tihiin matalayaasha dhabta ee waxbarashada dalkiina tihiin جماعة الصومالي علمي كسياسو